wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland waxa ay maanta magaalada Hargeysa ku qabatay munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee biyaha adduunka. Munaasabadan waxay ahayd mid ka duwan munaasabadihii hore ee lagu xusi jiray maalintani. Waxay wasaaraddu halkani ku diyaarisay qalab loogu talagalay nadaafadda taasi oo loo qaybinayo xarumo dawladeed oo ay ka mid yihiin cusbitaalada, jeelasha iyo waliba meelaha xuduudaha ee dalka laga soo galo, isla markaana qorshihiisu yahay in laga hortago cudurka adduunka ku faafay ee coronavirus. markaasi ay dadka halkaasi ka soo gudbaya ugu nadiif qaataan tawaangi waaweyn oo lagu rakabay qasabadaha lagu faraxasho ayaa halkani la soo dhigay. wasaaraddu waxay sheegtay inay agabkani u qaybinayso xarumaha dawladda ee markaasi aynu xusnay iyo waliba meelaha xuduudaha ah ee dalka laga soo galo. munaasabadan ugu horeyn waxa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Axmed Cabdi Ismaaciil oo faahfaahin ka bixiyay halkudhiga sanadkani ee loo qaatay xuska maalintaasi. wasaaraddu maanta waxay u taagan tahay inay xusto maalinta caalamiga la yiraahdo maalinta biyaha adduunka. maalintaas oo la isla gartay in la muujiyo muhiimadda ay leedahay biyuhu, sidoo kalena la soo bandhigo challengeska iyo dhibaatooyinka ka hor taagan biyaha in si wanaagsan loo isticmaalo. sidoo kalena sanadkan waxaa halkudhig inoo ah in la raaciyo biyaha iyo isbeddelka cimilada. waxaynu ognahay isbeddelka cimiladu wax kale kuma salaysna, wuxuu ku salaysan yahay intay biyuhu isbedelaan. isbeddelka cimiladu wuxuu keenay in biyo yaraan ay ka dhacdo adduunyada. waxa kale uu keenay in duufaano iyo dabaylo iyo daadad badan ay dhacaan. isbeddelkaasi markaa sal waxa u ah inaynu ka howlgalno in la dagaalamo isbeddelkaasi, kaasoo keeni karaya in annaguna wasaarad ahaan shaqadeedan si fiican aanu u gudano. haddii laakiin taasi ay dhici weydo, shaqadii biyuhu socon mayso ee dhibaato ayaa ku imanaysa. waxaynu ognahay muhiimadda biyuhu ay leeyihiin. ilaahi subxaana wa tacaala wuu inoo tilmaamay, wuxuuna inoogu tilmaamay wallahu khalaqa kulla daabatin min maain. noolo kasta horta biyo ayuu ka abuuran yahay, si darteed marka biyo kama maarmo. annagana shaqadeeda waxay tahay noolo kastoo dul taagan dhulka jamhuuriyadda Somaliland inaan biyo gaadhsiino, oo ay dadku kow ka yihiin, oo ay xooluhu laba ka yihiin, oo ay beeru saddex ka yihiin, oo deegaanka iyo inta ku noolayba ay afar ka yihiin. inta kalena wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Maxamed Muuse Diiriye oo isaguna halkaasi hadal ka jeediyay ayaa sheegay in ay wasaaraddu dadaal ugu jirto sidii ay doorkeeda uga qaadan lahayd dadaalada lagaga hortagayo caabuqa coronavirus-ka ee ka dilaacay adduunka laguna arkay wadamo ka mid ah gobolkan, inkastoo aanu Soomaaliland ilaa hadda lagu arag kiisas caabuqaasi la xiriira. wasiir Maxamed Muuse Diiriye waxa uu sheegay in ay gaadiid biyaha qaada iyo waliba agab u dirayaan gobolada dalka iyo waliba deegaamada dalka laga soo galo. waxaan farayaa dhammaanba maareeyayaasha, isuduwayaasha, wakaaladaha, degmooyinka iyo gobolladaba inay la shaqeeyaan guddida heer qaran, heer gobol, heer degmo ee hawshaa u xilsaaran. halkan waxaynu ka diri doonaa haddii la yidhaahdo dhammaanba taangeedii oo biyihii ku jiraan, saabuuntii waxaynu u diri doonaa gobollada iyo degmooyinka. waxay hawlgelin doonaan shaqaalowga halkaa jooga oo halkii laga hawlgelinaya xuduudaha laga soo galo dalka, meelaha dadku aada iskugu yimaadaan sida caafimaadka, muxuu ahaa ay kulanka ku yeeshaan sariibadaha. waxaanu dadkeena u sheegaynaa waa la shaqaysanayaa, u joojin mayna, inagu hawlaheenna waa wadanaynaa, hase yeeshee meelaha mustaximka ah in la yareeyo joogitaankeeda. munaasabadaasi waxaa intii ay socotay lagu soo bandhigay mashraxiyad ka turjumaysa ahamiyadda ay biyuhu u leeyihiin nolosha. Salmaan Cabdi Cali, Kalsan TV, Hargeysa.